ururka dhalinyarada ee kulmiye youth club oo ah urur dhalinyaro oo ka jira gudaha degmada Carmo oo kaashanaya wasaaradda deegaanka duurjoogta iyo dalxiiska Puntland ayaa kulliyadda ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo gaarsiiyay dhir loogu talagalay in kor loogu qaado bilicda kulliyadda ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo. munaasabad kooban oo ururku ku wareejinayay dhirtan kulliyadda ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed ayaa waxa lagu qabtay gudaha kulliyadda waxaana goobjoog ka ahaa gudoomiyaha degmada Carmo Engineer Maxamed Cali Shire, taliyaha laanta canshuuraha bariga gobolka Bari Gaashaanle Yuusuf Axmed Ciise iyo taliyaha kulliyadda ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed Gaashaanle Sare Axmed Cabdullaahi Samatar Layli oo isagu dhirtan la wareegay. waxaana ugu horeyn munaasabada hadallo kooban ka jeediyay dhalinyarada ururka kulmiye youth club ee degmada Carmo. waxaan celinayaa gudoomiyaha degmada Carmo, taliyaha saldhigga taliyaha kulliyadda taliyaha laanta canshuuraha dhalinyarada saraakiisha kale ee kulliyadda. maantay socodkaygu wuxuu maaragtay booqashadayadu lagu hogaaminayo gudoomiyaha degmada. waxay daaran tahay saddex qaybood. qaybta koowaad waxaa weeye inaan soo gaarsiino dhiratan oo inoogu deeqday ururka dhalinyarada ay ugu deeqday wasaaradda deegaanku una wixii kharash ah ku soo baxayna uu si shakhsi ah u keenay taliyaha laanta canshuuraha gobolka Bari Mudane Yuusuf. talabaadna waxa waaye isbarasho kulliyadii maadaama maamul cusub oo loo dhiibay. tan saddexaad waxa weeye u hambaliyeynta taliyaha cusub maadaama wax badan ka qabtay intii uu maaragtay yareed uu joogay kulliyadda wax badan inooga muuqdeen in maaragtay wax qabad wanaagsan uu ka socdo. isagana waan ugu hambaliyeynaynaa. waxaana u wadnay dhiratan iyo shahaado sharaf aanu ku guddoonsiinayno halkan oo ah inuu yahay nin maaragtay muwaadina oo ay ka muuqatay aan uga mahadnaqayno. sidoo kale waxaanan marraba ilaaweyn wasaaradda deegaanka oo iyaduna mar walba na garab taagan sidii ay noola shaqayn lahayd dhalinyarada oo aan mar walba dhinaca deegaanka ay kala shaqayso. wasaaraddu hadda ka horna dhir bay noogu deeqday oo aanu anagu kharashkeeda la baxnay inaanu facilitate garayno Carmo keeno. maantana tan ina hortaala iyada ayaa noogu deeqday. waxaan u mahad celinayaa iskuduwaha wasaaradda deegaanka gobolka Bari Mudane Jeylaani oo runtii qayb la xaal ka qaatay in halka la soo gaarsiyo dhirtan nooguna deeqay dhirtan in soo gaadhona qayb la xaal ku lahaa. intaasi kadib gudoomiyaha degmada Carmo Engineer Maxamed Cali Shire ayaa ururka kulmiye youth club uga mahad celiyay sida wanaagsan ay uga qayb qaateen bilicda deegaanka waxaana uu dhirtan ku wareejiyay taliyaha kulliyadda ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo oo u horeeyo taliyaha kulliyaddu ururka تمام عيدك بوليسكا وحلا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سلامك بعد صومالي هدينو النهي جيد بينو قويناي جيد ما بيرو waxaan u bogaadinayaa oo mahad celinayaa ururka dhalinyarada degmada Carmo oo horeyna magaalada Talaal uga waday iyo shaqooyin balaaran saakayna kulliyadii ku soo bilaabay inay dhirayaan. aad iyo aad baad u mahadsantihiin. dhulkeena hadaynu rabno qof kasta oo inaga ka mid ah ama Soomaaliya inuu geed beero kaymo noqonaya, laakiin dhaqan uma lihin inaynu dhirta beerno. waa inaynu beedelo ururka dhalinyarada degmada Carmo hormuud inuu ku noqdaa in kagana aynu dayno. taliyaha kulliyadda waxaan aad iyo aad uga mahad celinayaa muddada yareed uu joogay dhaqaaqa shaqo oo ay horena u sheegan ururku inuu ku daro dhiraynta iyo bilicda. waxa ugu weyn oo bilic soo saara ama bilic muujiya waxa waa geed. marka waxaan ku baraarujinayaa insha Allah taala in ururkuna keenaan dhirtii taliyuhuna uu mareysay dhirtii gudoomo qof walbana geed u dhiibo. sidoo kale taliyaha kulliyadda ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo Axmed Cabdullaahi Samatar Layli ayaa ka gudoomiyay ururka dhalinyarada ee kulmiye youth club iyo maamulka degmada dhirtan ay soo gaarsiiyeen kulliyadda ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed ee degmada Carmo. waxaan soo dhaweynaynaa
ururka kulmiye ee dhalinyarada degmada Carmo oo uu hor socday gudoomiyaha degmada Carmo iyo taliyaha cashuuraha bariga gobolka Bari oo noo siday hadiyad bilicda iyo hanaanka akademiyada Carmo bilaysa waxaan marka ugu horeysa u sheegaynaa inay kuuliyadu baahi u qabtay dhiraynta waxaan kale oo cadaynaynaa oo u sheegaynaa iyagana ku dhiirigelinaynaa wixii aad noo keentaan inaan muujino waxaan kale oo hadeer rabaa haddii alla idmo ciidanka 60 geed oo hadiyada ah oo naloo dhiibay oo la keenay oo horteeda ka muuqata inay ummadda daawadayaasha iyo kuwana maqlayaaba markhaanti ka noqdaan haddii aan ballanta ka baxno iyo haddaanu ballanta fulino inay iyaguna markhaanti ka noqdaan ugu dambeyntiina gudoomiyaha degmada Carmo iyo ururka dhalinyarada ee kulmiye Youth Club ayaa waxa ay shahaaday sharaf guddoonsiiyeen taliyaha kulliyadda ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed Axmed Cabdullaahi Samatar Layli tani waa shahaada sharaf ay soo diyaariyeen ururka kulmiye si ay abaalgud ugu siiyaan bilad sharafta taliyaha kulliyadda magaalada Carmo booliska Soomaaliyeed marka waxaan ku guddoonsiinaynaa aniga iyo gudoomiyaha ururka taliyaha kulliyadda taliya naga guddoon gudoomiye adiga ururkaaga dhalinyaradaba waa ka gudoomay shahaadada aniga iyo waliba shahaadada kaliya ma qaadan aniga ciidankii ila shaqeynayay ilana shaqeyn doona ba shahaadada qaadanay waan idinka gudoonay waana ku mahadsantihiin Maxamed Barre Saciid Maxamed Dadaal raadiyaha iyo telefishinka dawladda Puntland xarunta ciidanka booliska qaranka Soomaaliyeed magaalada Carmo